السلام عليكم. maanta qorax macaan jirto, hawada zaid u wanaagsan tahay maanta. Marka waxaa jeclaystay vlogger in aan ila wadaago. saa arkaysaanba qorax markay soo baxda aniga waxaa waaye gymka ma ku ordi, basketball yar iska qaataa, khaliga iska soo ciyaaro. haddii dad xil ila ciyaarana dadkaas kala ciyaaraa. marka intaa meesha u socdo idinkan inay la socotaan ciyaaro. maxaa yeelay mar hore ayaa waxaa rabnay inaan sameyno maxaa la lahaa video vlog weekii 2 mar 3 mar dadaa soo codsaday, marka waa ka caajisay inaan sameeyo. waqtigan waa u waayay maxaa yeelay inaan vlog sameeyo ama fitness videoyada aan sameeyo labada isku keeni waaye. marka insha Allah samarkan time badan aan helayaa, markaas ayaa vlogyo badan sameyn doonaa. waxaa noqon doona channelkii ugu horeeyay Soomaaliya oo vlogs prank sameeya insha Allah. waxaa kaloo sameyn doona maxaa la lahaa channel kale oo ugu talagalay waxaas waxaa ilmi isku dhaxwadi karno maxaa la lahaa fitness iyo vlog iyo waxa isku dhaxwadi karno. so channel kale ay vlog sameyn doona insha Allah. waxyaalo badan oo ka hadli doonaa, wax walba oo adduunka dhacayna oo sameyn doonaa. magaalada yar deganahay tuulo waa tuulo daddan ma socdaan, ana in yaro kurdish waxaan baa meeshan barbecues kaga karsanayo. dhankaas kale Soomaalida degan tahay, Soomaali malaha ereyadan meesha Soomaalida haddaa tagna waxaa vlog micno yeelan lahaa, dad badan aan heli lahayn. المقدسة soo galay. so dad badan ay weydiiyay basketballka koox ma u ciyaartaa, si fiican ma u taqaanaa? may si fiican uma aqaani. ani waxaa dheeli jiray maxaa la lahaa kubad. basketball dhan waxaa bilaabay sanadkii la soo dhaafay inaan ciyaaro. maxaa sababta u bilaabana waxay ahayd maxaa la lahaa kubadda ciyaari jiray baloniga. marka Soomaalidu waa iska ognahay, waa iska buuq badannahay, dad badan isku dhacnay. kubadda mar walba dadaal isku waa isdagaalayaa, waalidka la iscaanaya, hooyooyina la caanaya. marka anna midaas oo adkaysan waaye maxaa yeelay insha Allah miita loo imaaday la dhidido ma ahana in waalidka la xishmad laga qaado la caayo ama la isdagaalamo loo imaanin. waxaa iska bilaabay marka basketballka. waligay waa jeclaa inaan ciyaaro, laakiin dee Soomaali basketball ma ciyaarto. afrikana marka lagama ciyaaro basketball. halka markaa imaade koox yara iska galay. kooxda halkan iska ciyaarnaa hadda samarka markuu bilowday ama spring markuu bilowday fasaxa la galay, soo banaanka iskaga ciyaaraa. basketballkan muhiimad weyn ugu beeray waxay ahayd ama hadda u ciyaarabo orodka yar cardio-ga. maxaa yeelay waa ku caajisaysaa maxaa la lahaa mashiinta gymka waa ku caajisay ama guriga taalo. midda kalena mashiinta mar walba lagu ordo waxaa laga qaadaa laf xanuun, jilba xanuun. midda kalena waxaa fiican cardio micnihii orod waxa aad sameynaysid micnihii maxaa la lahaa fan ah aadan ku caajisaynin. midda kale maxaa la lahaa haddana basketballka almiitadiisa way ka badan tahay waxa aad gubaysid faad ama cardio ama maxaa la lahaa baruur aad gubaysid. marka banooniga iyo basketballkii waxa way ka badan yihiin. mashiinta lagu ordayo, mashiinta haddaad 30 daqiiqo ku ordid, qofka ugu badan saacado ayuu ku ordaa mashiinta. wuxuu gubayaa maybe 600 meelahaas, 600 calorie gubayaa. 600 calorie hal waqti aa cunno anagana. soo marka waxa ma tarayso waxay noqonaysaa deficit xun inaad gashid, cuntada cunaysid zaid u yaraysid. laakiin banooniga camal 30 daqiiqo markaad dheshid jirkaaga dhan waxaa waaye u daalan yahay, jirkii idil aad isticmaalaysaa. marka isku day waxaa sameysaa waxaa jeceshahay xiisaysid. banooni, basketball, tennis, wuxuu yahayba. hataa maxaa la lahaa jumping rope, xeraga
waxa aad almeeta xiiseynaysid hadhow ka cajiseenin ama marka tan ka cajistan kala bedelan kartaa fiican marka waa kaya mid kale si wanaagsan ma aqaani saa sheegayba mar dhow la bilaabay ciyaaro laakiin at least waxa weeyaan basic dhan waa hayaa waa dheeli karayaa in markuu garoon galo banooni lagu iska dhufsanayo mihi waxa yeelay sanad dhan ciyaaray samarkii la soo dhaafay oo waa ciyaaray hadda winterkan waxa ciyaareynay kooxda meesha garoonka kooxda lagu ciyaaray soo waxa way fataleera iska way bilaawanta dadka dhahayana basketballka maxaa la lahaa qof gaaban ama qofka average-ka loogu talagalay dhexdhexaadka basketball waxa loogu talagalay qof dheer no meeqa basketball leesho basketballka waxa dheelay daawo dadka dhan wada dheero waa qasab basketball dadka dheer weeyo badankood way dheer yihiin laakiin ma aha qasab inaad dheeraatid soo ciyaartid Chris Paul ninka la aragtay meel uu gaaban yahay Kyrie Irving waa aragteen soo gaaban yahay dadka NBA ga ciyaaro idil badankood way dheer yihiin laakiin haddana saayeeta koox walbo nin ama laba nin gaaban ku jirto ama laba nin oo dhexdhexaad aan dheereen aan gaabneen hadda control kartid handle-ka gacantaada wanaagsan yahay aan shoodi kartid intaas waa muhiimad ma aha inaad dunk gareyn kartid ama inaad maxaa lahaa rebound samayn kartid dad loogu talagalaa jirta sida banooniga camal waa banooniga markii dheelayso ama ninba meel loogu talagalay saas camal waa kana position ala leeyahay position uu leeyahay position ka ina kasoo baxay la raaco waa sidaas already waa 6 daqiiqo soo socday dakaliya aan laakiin 4 daqiiqo 3 daqiiqo inta video gudo 6 daqiiqo socday meesha waa tan loo qaasayaan insha Allah vlog badan oo sameyn doona haddii aad vlog badan na sameey rabtid meel badan ku sameeyno please like ku dhufo comment ku reeb video haddii aad wax faa'iido la ka hadalna haysid comment ku reeb asna vlog ka sameyn doona saabsan loo dak bye bye